Arsenal ayaa xalay la kulantay laba gool darro iyadoo gool daradii ka soo gaartay kooxda Bayern Munich kaliya aysan ka saarin tartanka Champions League laakiin sidoo kale ay meesha ka saartay rajadii ay ka lahaayeen ka qaybgalka koobka kooxaha adduunka ee FIFA Club World Cup 2025. Kooxda uu hogaamiyay tababare Mikel Arteta ayaa xalay booqatay garoonka Allianz Arena kulanka lugta labaad ee sideed dhamaadka Champions League oo ay la ballansanaayeen naadiga Bavarianka kadib markii ay labada kooxood barbaro 2-2 ah ku soo galeen garoonka Emirates toddobaadkii hore. Joshua Kimmich ayaa daqiiqadii 63aad madax ku dhaliyay goolka guusha siiyay kooxda Bayern Munich una xaqiijiyay inay iska xaadiriyaan semifinalka ama afardhamaadka tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Inkastoo dadaal badan ay sameeyeen, haddana Gunners ayaa awoodi weysay inay xalay gaaraan shabaqa uu ilaaliyaha ka ahaa goolhaye Manuel Neuer. Waxaana guuldarada ka soo gaartay Champions League kooxda Arsenal ay ku soo aaday waxyar uun kadib markii dharbaaxo adag lagu dhuftay rajadoodii hanashada horyaalka Premier League markii toddobaadkii hore ay guuldaro kala kulmeen naadiga Aston Villa. Guuldaradii Arsenal xalay ka soo gaartay kooxda Bayern Munich ayaa keentay in kooxda Red Bull Salzburg ay xaqiijisato booskeeda ka qaybgalka tartanka koobka kooxaha adduunka kaasoo la qorsheeyay inuu ka dhaco dalka Mareykanka xagaaga 2025. ka mid noqoshada kooxda reer Australia ee tartanka koobka kooxaha adduunka ayaa laga yaabaa inay la yaab kugu noqoto, balse sida uu qabo sharciga FIFA wadamada waxaa loo ogol yahay kaliya inay laba kooxood ku yeeshaan ilaa dal uu yeesho dhowr kooxood oo ku guuleystay horyaalnimada dalkaas. Natiijadaas ayaana ka dhigtay in Salzburg ay u soo baxday ka qaybgalka tartankan inkastoo ay ka hooseyso kooxaha Liverpool, Barcelona iyo AC Milan. Yurub ayaa 12 boos ka heshay tartankan oo qaabkiisa la ballaariyay kaasoo la ciyaari doono bilaha June iyo July ee sanadka soo socda. waxaana guud ahaan dhacdadan ka qaybgali doona 32 kooxood oo kala matalaya la xiriir oo kala duwan. Gunners ayaa u baahneyd inay ku guuleysato xilli ciyaareedkan Champions League si ay u xaqiiqsato booskeeda ka qaybgalka tartankan lagu ciyaarayo dalka Mareykanka.